meeshan maanta sababta u joogno kulligiin waa wada ogtihiin waxaa isugu imaan waxay tahay waa maalin qarannimo waa maalin soomaalinimo waxa weeye maanta qof walba Soomaaliya waa ku weyn marka dadkii dowladda Soomaaliya meel kasta ay joogto waxaan ku faraxsanahay in maanta meel walba laga wada xusayo qof walba uu muujinayo midnimadii qarannimada Soomaaliya markii halkaas marayso Soomaaliya saab socotaan waxay taariikh ahaan group ugu jirta 13 dhalinyaro SOL maanta 13 ahaayeen waagaas xaaladoodu way ka adkaayeen gumeysi baa jiray saas u tahayna ayagana waxay ka mid dhaliyeen in maaragtay qarannimadii iyo midnimadii iyo Soomaalinimadii ay idinku taagaan marka annagoo dowladnimadii haysana dadkeedii xoog ah gumeysi aan ku soo gaarin dadkarna ku dhalan inkastoo qaalaasadaga ku soo aadan laakiin hadda ayagana ku soo fiicanahay dad najecel walaalihii Turkiga aan ku baranayno waxbarashada si aan la ka tukorin maxaa loo jeediyay maaragtay sida SOL oo kale aan intiis xilqaano wadada ay marina aan la marno oo maaragtay isha jiilka laga dambeeyo aan xariiqno ama uga tagno raadwaas runtii markii xafladda laga hadlayo qof walba maanta dhalinyaro oo Soomaaliyeed waxaa laga doonayaa sida wiilka dhalinyarada Yurub jooga ama Asia jooga ama Mareykan jooga sidoo uu fikiraya si ka wanaagsan oo ka sarreeya inuu fikiro sababtoo ah iyaga horumarka ay gaareen waxa gaarsiiyay awooyaashu maanta annagii ay isku mid waxa weeye iyaga dad loo soo dadaalay loo soo rafaado way maanta laakiin annaga markaan fiirino xaaladda aan ku jirno iyo rafaadka aan marayno dhalinyaradii dhibaatada haysato waxa weeye aad ugu nasiib darrada laakiin annaga bedeli karna midaas waxa ku bedeli karnaa waxay tahay in qof walbo ardayda kamid ah ama meel walbo joogo dhalinyaro ah uu isku dayo jiilka asiga ka dambeeya ama faraciisa ama intuu awood u yahay in uu maaragtay badbaadi noloshooda in aysan tahriibin in dalkooda ku qanacsanaadaan in maaragtay midnimada ilaashadaan hadda Soomaaliya waxay tahay waa qabyaalad iyo maaragtay isheeg fikrada kala duwan oo ummadda la isugu jabinayo waxaas waxyeelo waxay tahay dhalinyarada hadday jiiftaan oo ayagii maaragtay loo ogolaanin in maaragtay dadku wax ka qabsadaan ama aysan maaragtay isheeg fikirkooda kartidooda aysan soo muujin waxa weeye dhibaatada weyn keenaysa marka qof walba yuusan isdhiin dhalinyaradaas kale ama qof kale ayaa maaragtay dadka martuuga waxa weeye hal qof meeshu wax ka qabto ayaa maaragtay kulligan ka wada qaban kara walba marka waxa la sadaqada ka bilowda kullu Soomaa waa naftiina ka bilowda deegaankiina ka bilowda magaaladiina ku xijisaan kadibna dalkiina kadibna qaaradiina kadibna adduunyada ku soo xijisaan qof walba hadafkiisa iyo maaragtay fikirkiisa ujeedadiisa sidaas ha ahaado taas waa qodob midda saddexaad oo ku soo gabeeyay waxay tahay ardayda dhammaan Soomaaliya meel walba joogto waxa weeye haddii qurbo la joogo Soomaaliya waa walaashada laakiin walaalnimada inta lagu joogo yaan ugu deyn dalka hadii ku noqdo maaragtay halala tago kala gaceelkii halala tago walaaltinimadii halala tago qarannimo jaceelkii taas waxaa Soomaaliya markii la fiiriyo maamul goboleedyada badan loo qeybiyo federalism naga dhigay waxa ardadka ka xiray xuduud u yeelay waxay tahay Soomaaliya simidoodi maanta wiilka ku dhashay Hargeysa hadduu san baydhabo gudoomiye ka noqon karin kismaayo ku dhashay oo jooga ka noqon karin gudoomiye waxa weeye wili waxa naga dhex jiro waa cadifad iyo dagaal iyo xulguf taasoo seen ku gaari karaa marka qof walba Soomaali ah magaalada kasta oo Soomaali ku taal inuu maaragtay awood ku lahaan karo inuu maaragtay tala ka geysan karo inuu wax ku soo kordhin karo qof walba maanta intii ku jiro yuusuf ku fikri aniga waxa ka soo jeeda galmudug ama Puntland ama Hirshabelle ama Jubbaland ama yuusuf nin Soomaaliya ka soo jeeda waxa barado dalkeeda uu noqon doona dalkeeda waxa qoon doona ha ku fikiro waxa weeye waxa leedahay markuu ceel ku jiro kale adduunyada wuxuu maleeyaa ceelko kale inta ceel afkiiso kala laakiin markuu banaan ku soo baxo waxa arkay adduunyada sidaas ka weynta marka qof walba Soomaaliya ama qof walba maaragtay bin aadan waxa laga doonayaa waxay tahay hamigiisa iyo hadafkiisa iyo maaragtay fikirkiisa inuu sidaas ka dheereeyo marra halkan ku dhameeyo waxa weeye maasajada waxa filayaa in maaragtay sidii aan u rabo ardayda u gaarto meesha maanta waxay noqon doontaa programka u dhameeyay waa barnaamij farxadeed waxa weeye intii ka soo qayb gashay aad u maasantii intaana ka soo qayb galan hadii insha Allah waxaan rajeynayaa magaalooyinka aad tagtaan programyada ku qabsan doontaan insha Allah inaad waxyaabo fiican ka maaragtay ka soo bandhigi doontaa aniga gudoomiye ahaan maanta waa khudbadii ugu dambeysay aan meesha ka jeediyo insha Allah ardayda laga dambeysay to kasii joogi doonto waxaan jeclahay mas'uuliyadda hadda aan u hayo iyo teamka isla socono guddiga sharafta leh ee xafladda ila soo qanqaabiyo asla wadno in maaragtay xilkaas ayaga aan uga tagno ayada magaalada dadkeeda degan yihiin ay maaragtay iyo dadka maamulka ciidamada ha ahaato waxbarashada ha ahaato
xiriir wanaagsan la sameeyo soo dhawaasho la sameeyo ardayda kale ajaanibta kaga hormaro waxa weeye annaga waxaan ku darto waxay tahay dadka kale ajaanibta si u fikir uma fikiri meeshaan joogno waxaan u arkaynay in hooyigeen uu yahay saas awgeed ardayda meesha sii joogaysa ama kuwa tegi doonta meel alla meesha sii geysan taga markuu u horeyso waxaad ilaalisaan sharaftiina waxaad ilaalisaan sharafta qarankiina maanta hal qof qaladka uu galo Soomaalina ma aragto loo sameeynaa haddii maanta aniga halkaas aan qof u dhalbaa ama wax ku dhufto kale yaa waayo waa Soomaali la magaciisa sheeg maayo sidaas awgeed qof walbo naga mid ah mas'uuliyad qaran baa saaran waxaana saaran mas'uuliyad maarta Soomaalinima fadlan magacaas ilaalino magacaas nadaafadiisa laga shaqeeyo magacaas maarta sidoo sharaf ku yeelan lahay aan ku dadaan hadda litmo ka soo qaybgalkiina aad baa ugu mahadsantihiin sayfili mudularin qiimad lahu jalaram sayfili orange kardeşlerim kıymetli ekip arkadaşlarımız abilerimiz çok teşekkür ederim iyi ki geldiniz tekrar hoş geldiniz